برنامجكن oo kamida barnaamijka taxanaha iftiinsha mawduuca aynu maanta iftiiminayno ama aynu dul istaagayno oo ciwaankiisu yahay isbedelka iyo bulshooyinku sida isku bedelaan oo runtii ah mawduuc ballaaran oo waqti inta ka badan u baahan waxaan sameyn doonaa inaan si kooban u dul istaagno isbedelku wuxuu yahay iyo bulshooyinku sida isku bedelaan bulshooyinka iyo isbedelka bulshooyinka markaanu leenahay waa laba eray bulsho waa koox dada oo ay ka dhaxayn karaan af dhaqan midab diin iyo deegaan ama aanay ka dhaxayn karin taasoo ay isku hayso dabar intaaba ka ballaarnaan kara ama la mid ahaan kara oo ah diin dhaqan ama dal isbedel markaynu ka hadlaynana waa xaaladda ay bulsho markaa ama cidi ay ku sugan tahay shalay maanta inay ka duwanaan karto ama maanta ay ku sugan tahay ay ka gadisnaan karto ayaa isbedela oo xaalad hore u soo jirtay oo cid ku sugnayd in si ka duwan ay u dhacdo ama habka ay isu bedelaysa waxa la oranayaa waa isbedel intaynaan ka hadal isbedelka bulshooyinka waxaan isweydiinaynaa inagu bulsho ahaan ma u baahannahay isbedel haddii maanta waxyaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto dhalinyar hadday noqoto rag iyo dumarba aqoonyahanka hadday noqoto culimaa u diin cid wal oo kamida bulshada marka aad gaar ula sheekaysato ama aad ka wareysato wax ka xeel dheer nolosha yoomiyaha ah iyo quutal daruuriga marka aad kala sheekaysato hanka fog iyo himilada bulshada iyo halka loo socdo aad weydiiso bulsho ahaan halkaynu u soconnaa maxaynu u noolahay ama hamiga bulsho ahaan aynu hiigsanaynaa muxuu yahay haddii Malaysia 2020 ay hiigsi leedahay Kenya muxuu yahay tusaale ahaan ma jirto cid warcelin waafi ah ka siinaysa ama qeexi karta halka aynu u socono haday noqoto madax haday noqoto shacab haday noqoto aqoonyahan haday noqoto jaahil dhammaantood way ka siman yihiin in aan la garanayn bulsho ahaan halka aynu u jihaysanahay waxa aynu u socono iyo waxa aynu rabno sida daraadeed fal kasta oo aynu sameynayno ama hawl kasta oo aynu haynaa waa garaanta adduunyada ee qofba halkii ay ula rogmato waxa weeyaan uu ku arkayo ee aanu isagu lahayn awood uu ku maamulayo ama awood uu ugu wareejinayo oo ugu leexinayo halka uu doono tusaale ahaan kumanaanka dhalinyar ah saxaraha kulle anaya boqolaalka kale ee badaha ku dhinta iyo inta ka soo hadha ee bulshooyinka kale magangaliyada weydiista waxay astaan u yihiin ama ay cadeynayaan heerka kalsooni darrada aynu bulsho ahaan ka qabno waxa weeyaan nolosha aynu ku noolahay in aynu ka doorbidno inaynu bulshadeennii ku dhex noolaano oo aynu inagu wax noqonno inaynu dad kale bulshooyin kale oo inaga dal duwan oo inaga diin duwan oo inaga midab duwan oo inaga deegaan duwan oo xataa inaga dhaqan duwan inta aynu isu dhiibno aynu gacmaha hoorsanno waliba aynu ka shaqeyno sidii bulshadaasi ay u gaari lahayd waxa weeyaan iyagu hanka iyo himilada iyo mustaqbalka iyo rajada ay leeyihiin aynu inagu ugu shaqeynahay daayarteeni ay ugu shaqeynayso oo teeni aynu ka yaacnay marka aad eegto qiyamka ummad ahaan ama bulsho ahaan dhexdeena sida uu ka yahay runtii haday noqoto run sheegidii haday noqoto dad la macaamilkii xataa haday noqoto kii maamul ee cadaaladda lahaa ee waxa weeyaan xilkasnimada lahaa intaasoo dhan marka ay bedeshay cadaalad darro marka ay bedeshay musuqmaasuq marka ay bedeshay been marka ay bedeshay intii qiyam wanaagsaneed oo dhan marka ay bedelaan qiyam xumi iyadana runtii waxay astaan u tahay heerka bulsho ahaan aynu ka taaganahay qiyamkii waxa weeyaan ay ahayd inaynu waxa weeyaan ku faano ay ahayd inaynu ilaalino ay ahayd inaynu u hanweynaano halka aynu ka taaganahay iyaduna cadeynaysa intaasoo dhan marka la isku soo daro waxay astaan u tahay ka bulsho ahaan iyo ummad ahaan inaynu u baahannahay xaaladda marka aynu ku sugannahay ee dhinac walba wax weeyaan u liidata ee aynaan garanayn halka aynu u jeedno ee daayarteeni aanay hal rajo ku qabin wadankii ee madaxdii ay la mid yihiin ee shacabkii la mid yihiin aqoonyahankii la mid yihiin ee aynu giraanta nolosha kolba xagga ay noo rogto aynu la rogmanayno inaynu iska bedelno oo aynu isu gadino
nolol inagu aynu rabno nolol inagu aynu qorshaysano nolol inagu u socoto halka aynu rabno inaynu hiigsanno taasoo marka da'yarteena iyo bulshadeena ku abuurta himilo ah in qofkani uu han lahaado inuu han weydanaado bulshada uu ka soo jeedo inuu han weynaado waxa uu qabanayo shaqo kasta uu qabanayna waxa weeyaan uu dadaalkeedii iyo nafurkeedii iyo kartideedii uu la yimaado isbedel caynkaas inaan u baahannahay baa soo baxaysa marka isbedel aynu u baahannahay ay ka soo baxda halkaasi iyaduna waxa xigaysa isbedelka sida loo sameeyo isbedelku waa laba waa ka togan ama mid taban mid halkii aad shalay ku sugnayd meel ka sareysa meel ka fiican meel ka qiimo badan aad u socoto iyo halkii shalay aad taagnayd meel ka sii hooseysa meel ka liidata aad tagto inay ahaato marka aynu ka hadlayna waxa weeyaan waa isbedel togan oo xaaladda maanta aynu ku sugannahay xaaladda fikir xaaladda hablanoleed xaaladda waxa weeyaan mustaqbal ee bulshadeena aynu u bedelayno mid dhaantata maanta aynu ku noolahay ee waxa weeyaan aynaan isu dhiimin waayaha iyo nolosha taa marka waxa ugu horeeya kow inuu jiro fikir iyo aragti dhammaan mashaakilkan aynu ka hadlayno haday tahay waxbarasho haday tahay maamul haday tahay qiyam iyo akhlaaq dhan kasta oo ay tahay in la helo ama uu jiro fikir iyo qorshe lagaga bixi kara qorshe dhammaystiran oo qeexaya waxbarasho laga cabanaya tayadeedii waa sax sidee loo hagaajinayo waxbarashadii tayada nidaamkee la maraya ma maamul baa laga soo hagaajinaya ma hoosta laga bilaabaya yani in la qeexo sidee loo sameynaya isbedelkii aynu rabnay qorshihiisii marka la qoro isbedelkii ee la diyaariyo waxa iyaduna xigaysa isbedel kasta oo la qoro ama qorshe kasta oo la qoro hawl kasta oo la qabanayo oo la diyaariyaa haddii la qoro kama duwana waxa weeyaan khad waraaq lagu madoobeeyay ama gidaar lagu xarxariiqay waxay u baahan tahay dadkii dhaqaajin lahaa ee qorshaha qoran iyo fikirka iyo aragtida u rogi lahaa wax waaqica oo jira oo dhexdeena laga arko taas marka waxa weeyaan dadka waliba ay u baahan tahay ee aadka ugu habboon inay qabtaan waxa weeyaan oo dadka da'yarta ah marka la eego waqtigooda marka la eego sida ay ugu bareeri karaan halis kasta iyo ciriiri kasta iyo culays kasta oo isbedelka baaxadda la kaga imanaya intaasoo dhan marka la eego dadka da'yarta ah baa dadka ugu mudan in ay qabtaan iyagu waxa weeyaan mustaqbalka isbedelka qorshaha la sameeyay inay iyagu hoggaanka u qabtaan ta ku xigta iyaduna waxa weeyaan dadka ama dadka iyagu u kacay muruqa gali xooga gali iyaga laftooduna waxa weeyaan inay la yimaadaan nafhurnimo inay la yimaadaan daacadnimo in faa'iidada kaliya ee ay ka rajeynayaan ay noqoto in ay arkaan isbedel dhab ah oo bulshadooda ay ku sugan tahay taasina runtii waxay u baahan tahay iyada lafteeduna waqti waxay u baahan tahay dhabar adayg iyo waqti badan oo la galiyo ay u baahan tahay ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي عدنا بلشنا ما بدلوا هدي أي حمان كسوغان تاعي وناغو ما بدله هدي أي وناغ كسوغان تاعي حمان وما بدلوا هدي إيجو أنا إسبدلين إيجونا ما خصب إن بلشنا جبي جدوا إسبدل شيء سيدا إن صار شغني وحويان قف قفوف كميدا بقى ويستاجي كرا قواسا ما شرها وقبان كرا سببنا أقول نقول كرا إن قف كستو بلشنا كميدا هاي وإسبدلوا هدي إلهي إنه لك عشانه إنه الدذالك وحويان إنه أكعنه لأن يراهنا بإذن الله سبحانه وتعالى وإنه قارنا وأنه نكمل دارين دونا برنامج كان runtii ahaa mid waqtiintan ka badan u baahnaa oo ka balaadna oo ay ahayd qodob walba in gaar loo dul istaago intaasaan kusoo gabagabaynayaa waan u mahadnaqayaa cid kasta oo barnaamijkan soo qaban qaabisay dhammaantiina waxaan idin leeyahay ramadaan kariim